بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan doonayaa inaan ka soo jeediyo maglajagaas oo ah saad la socotaan maanta waxaa maadilada xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ay magacawday taliyaha guud ee ciidanka liyu booliska gaarka saad la socotaan ciidankan kadi waa ciidan taariikh weyn leh waa ciidan in badan soo shaqeeyay oo maxaan ku raadilay ka soo shaqeeyay nabadgelyada waa ciidan dalka iyo deegaankaba qiimo weyn ugu fadhiya runtii ciidanka kadi ma aha maaragtay dilay ciidan qiimo fudud ugu fadhiya maxaan ku raadilay haday shacabka noqoto iyo haday dawladda noqoto labadaba runtii xilkana maalin baan inuu qabto waa dilay waa la isbeddelaya sidaa darteed waxaan la soconaa maxaan ku raadilay maanta inuu isbeddel inuu ka socdo maxaan ku raadilay deegaankii taasina waxay ka mid tahay isbeddelkan kada guud ee ilaa dalkii maxaan ku raadilay deegaanka ka socday ka mid tahay sidaa darteed marka waxaan doonaynaa inaan u sheegno ciidanka inaan maxaan ku raadilay hadii aan lagu soo dhawaado nidaamka isbeddelka in maxaan ku raadilay ayna noqonin maxaan ku raadilay barabagandada faraha badan ee soo gaadhaysay ciidanka dhagiisa ku soo dhacaysay inayna barabagandada inaan maarta dhagahood inayna u duleelin ta kale waxaan doonaynaa halkan inaan ka cadeeyo inuuna maarta dilaa jirin barabagandada faraha badan ee soo gaadhaysay hadii la hadda koor baaniga laftarka dilaa dhagaay ku soo dhacaysay inuuna waxba ka jirin oo ciidanka kadi maarta ilaa ciidan deegaanka iyo hadii la raado shacabka iyo dawladdu ay dan adag kaleeyeen inuu yahay in maxaan ku raadilay ay ku soo dhawaadaan dilay nabadgelyadii ay ka shaqeyn jireen inay ka shaqeeyaan wixii hadda koor ay ka soo shaqeyn jireen maarta inayna maarta dilay maanta inayna maarta dilay inay ilaashadaan inay maxaan ku raadilay way soo dhinteen ciidan fara badan baa dilay maanta dilay ku soo shahiiday xaaladda nabadgelyada darteed shacabkii shalay toolaha dilay dhibaatadiisa dilay u dagaalamayeen ay u halgamayeen inayna maanta dilay maarta inagana inayna maarta inaan caqabad u noqonin in kabii shacabka ay hadda koor lahaa in waliba maarta dilay laga sii dhawaado oo maarta dilay dadku ay dilay ciidankaas ay u shaqeeyaan oo wax kasta oo dhan oo maxaan ku raadilay doonaya ama hadii qof dilay isku dhacay maarta dilay xalaha noocaas oo kale hadda dadka barabagandada sheegaya hadii ay doonayay inayna maarta dilay inay ka fogaadaan in maxaan ku raadilay dilay ciidamada qaranka iyo ciidamada liyu boolisku dilay waxay ahaayeen ul iyo dirkeed bin hadda koor saahin imikana wax isbedelay ma jiraan maamulkuna uu isbedeli karaa laakiin inagu ciidan baynu ka nahay siyaasiin manhiin oo ciidanku maxaan ku raadilay liyu boolisku ciidan siyaasiin maaha waa ciidan weeyaan ciidanku mar hadduu maxaan ku raadilay mar hadduu ciidan yahayna siyaasaddu ka madax banaayay marka waxaan doonayaa inaan u sheego in maxaan ku raadilay dadaalkiini faraha badnaa iyo hadii la nabadgelyadii faraha hadii aad ka soo shaqeyseen runtii inaad maartay in la adkeeyo in maxaan ku raadilay shacabkeena hadii la inuu turo oo maartay dilay wixii carqalad ku noqonaya aynaan marnaba aynaan ka shaqeynin runtii ciidamada hadii la mas'uulintooda iyo maxaan ku raadilay saraakiishooda sarsare sad la socotaan jenaraal Cabdiraxmaan in badan maxaan ku raadilay ciidanka soo xukumayay aniga mas'uulkii koobaad ilaa iyo maxaan ku raadilay maalinka maanta isaga madilay mas'uuliga soo ahaa runtii karaamo iyo xurmad iyo sharaf badan baan u hayaa maxaan ku raadilay deegaanka karaamo badan buu ku leeyahay shaqo fiican buu soo qabtay maxaan ku raadilay hadii uu shaqada maanta inuu ka tahay noqoto si sharaf leh oo maxaan ku raadilay xurmo leh intii xalfilad loo dhigo in maxaan ku raadilay loo hadilay maarta dilay loo sagootiyo inuu si fiican dilay ugu dhaxnoolaado deegaankiisa inayna ahayn inuu shaqadii kaliya ka tagay waayo qofku markuu shaqeeyo shaqadiisa shaqo fiican markuu soo qabtay shaqadiisa way nooshahay shaqadii way socotaa bay ka dhigantahay markaan hadda maanta aanu shaqeynayo ciidankii kale uu shaqeynayo jenaraal Cabdiraxmaan uu shaqeynaya systemkii dilay dadkii uu beeray iyo hadii dadkii uu la soo shaqeynayay uu shaqeynaya ba ka dhigantahay anaga marka meel kastuu joogo inaan si xurmo leh oo hadii la raday maxaan ku raadilay hadii la dadaal leh inaan meel kastuu joogo inaan ogaano inuu hadii la xurmo naga mudan yahay aan iyadana u sheegaya saraakiisha kale ciidanka iyadana waxaan doonayaa inaan u sheego inay maxaan ku raadilay hadii ay ku soo dhawaadaan iyaguna wixii wanaag iyo maxaan ku raadilay sharafteena waxay wax u dhimeeya inay ka fogaadaan wixii dadkeena dantiisa dawladnimadeena ilaalinteeda maxaan ku raadilay kaliyeetana inaynu ka wada fikirro inaynu ka shaqeyno in maxaan ku raadilay ayna noqonin wax danaysi gaar maartay hadii la raday ama wax dad barabagandaysta hadii la waxa ay leeyihiin inaynaan dhageysanin marka runtii waxaan doonayaa maartay dilaan halkan ka soo jeedinaya alxamdulillah inaan maartay dilay dadka bulshadana waxaan ka codsanaynaa ina shaqada dilay inay nagu garab galaan oo nala shaqeeyaan waayo wixii shaqasta dilay xaaladaadka nagala soo gudbay iyaga ahayn iyagoo hadana nala shaqeynaa runtii maxaan ku raadilay dilay shaqo lama qaban karo marka sidaa darteed ciidanka waxaan sheegay qaybihiisa kala gedisan inay maaragtay dilay ay aaminaan oo dilay ku soo dhawaadaan wixii carqalad keenayaan ay ka fogaadaan dawladnimadii aynu inta faraha badan aynu soo dagaalameynay aynu soo halgamaynay aynu meesha soo gaarsiinay
horumarkii aynu ka soo shaqaynaynay in maxaan ku dhahdaa ay dadku ay maaragtay aynu ilaalino oo aynu sii adkayno halkaana laga sii qaado maamulka isbedelka iyo maxaan ku dhahdaa maamulka inoo yimid inaynu sidaynu maamulkeeni hore ula shaqaynaynay iyo dhaganuglaantii iyo maxaan ku dhahdaa dilay kalsoonidii laynu yiqiinay iyo wadaniyadii iyo sumcadeeni faraha badneed dilay geeska Afrika oo dhan dilay laynooga bartay inaynu sii wadno martay dilaynu sii adkaysano bulshadana waxaan ka codsanayaa inay nala shaqeeyaan inaan maxaan ku dhahdaa waxaan u taaganahay iyagoo inay tahay dilay dantooda inaan dantoodana inaanu ka shaqeynayno haddii Allah uu dilo hadduu ogolaado wixii aan ka shaqeynaana inuu wax dantooda u noqdo oo wax dhibkooda inaan ka shaqeyn doonin taasaan maaragtay dilayaan yaanu sheegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.